أبيات وين ما يسمع هلا ديار قروب هلا ديار قروب هلا ديار قروب أنا ديار بان دايما استقبل أريا هاريك بيربع الباصوس ولا أريا ما حكنا قرية waxaa magaalada Hargeysa habeennimadii xalay ahaa lagu qabtay madal aad u qurux badan isla markaana lagu maamuusayay laguna soo bandhigayay masraxiyad faneed ka turjumayay dhibaatada ay qabyaaladu leedahay iyo waliba midnimada iyo horumarku faa'iidada ay leeyihiin taasi oo ay ka soo qayb galeen kumanaan kun oo kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa waxaana soo qaban qaabiyay kulankaasi aadka u qiimaha badan leh hormuudka dhalinyarada Soomaaliland iyagu ku boobay olaha ciribtirka qabyaaladiidka halku dhiga madashii habeennimadii xalay ahayd ayaa waxa uu ahaa qolo kufaanka midnima ka qurux badan ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka qabyaaladiidka Cabdikariin Axmed Mooge oo sharaxay ujeedada ay u soo bandhigeen kulankani waxaana uu tilmaamay in iyagu oo aan gacan ka heleynin dawlad iyo cid kale ayagu u istaageen kaligood in ay bulshada ku dhaqan Soomaaliland kala dagaalamaan qabyaalada una soo jeedaan horumarka iyo waliba midnimada iyagoona soo maray badanka gobolada Soomaaliland sidoo kale waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyay Maxamed Xasan Cali Waji oo ah rugcadaas suxufi ah isla markaana ka warramay dhibaatada qabyaalada waxaan leeyahay berri idin markaa oo xooga sabiyada ilaahay oo aswaadii meeshooda laakiin way yooyoo insha Allah dagaalka berri uu noqonayo qabyaalada dadkahay intaasi kadibna waxa loo gudagalay masraxiyad faneedkii lagu soo bandhigayay dhibaatada ay qabyaaladu leedahay iyo waliba midnimada iyo horumarka u faa'iidada ay leeyihiin iyagoo bulshadii ka soo qayb galay madashaasina si weyn ula dhaceen masraxiyad faneedkaasi la arkay weyno taballa mashiteen kala dira allaylehe damba lagu qabaa daawada waxay dunisaan iyo qabyaladan dalenka daawada digaadka tibirtiyo usiya dirxa qotiya xijira durduran daawada عبد الوهاب حسين Universal TV Hargeysa